Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Amanjano. ASEAN waa urur siyaasadeed oo ka kooban 10 dal oo ku yaala Koonfur Bari Asia. Waxayna kala yihiin Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand iyo Vietnam. Ujeedka loo aasaasay ururkani waxay ahayd in lagu horumariyo dhaqaalaha, siyaasadda, waxbarashada iyo isdhexgalka bulsho ee wadamada ku bahoobay ururkan. Markii ugu horeysay ururkani waxaa la aasaasay 1961 waxaana lagu magacaabi jiray Association of South East Asia oo loo soo gaabiyo ASA, waxaana xubin ka ahaa kaliya 3 waddan: Thailand, Philippines iyo Federation of Malay. Sanadkii 1967 shir lagu qabtay magaalada Bangkok ayaa waxaa lagu bedelay magaca ururkan, waxaana loogu magac daray ASEAN. waxaana ururka ku soo biiray wadamada Indonesia, Singapore iyo Malaysia. Dhammaadkii sanadkii 1990 Vietnam, Laos, Myanmar iyo Cambodia ayaa iyaguna ku soo biiray ururkan. Haddii ay wadamada ASEAN ku bahoobay ahaan lahaayeen hal waddan, waxa ay noqon lahaayeen waddanka 3aad ugu dadka badan caalamka, waddanka 6aad ee ugu weyn iyo waddanka 4aad ugu dhaqaalaha badan caalamka. Sanadkii tagay koritaanka dhaqaale ee ASEAN waxa uu kor u kacay 6%, waxayna maalgashiga ugu badan ka helaan Midowga Yurub iyo China. Midowga Yurub waxa uu ku maalgashtaa 46% oo dhigmato $30.5 bilyan, halka China ay ku maalgashato 44% oo dhigmato $9.2 bilyan. ASEAN waxaa xarun u ah caasimadda waddanka Indonesia ee Jakarta. Sanadku markuu ahaa 2000 waxay ASEAN heshiis ganacsi la gashay wadamada India, China, South Korea, Australia, New Zealand iyo Japan. Laga soo bilaabo sanadka markuu ahaa 2001 shirka wadamada ku bahoobay ASEAN waxaa la qaban jiray sanadkiiba hal mar, iyadoo looga doodayo sidii xal looga gaari lahaa problemiska taagan xilligaas. Intaas ayuu inoogu egyahay ciwaankeena maanta. Haddii aad daawada nagu cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saarato. Haddii aad video ka heshay inaad like saarto. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaa inoo balamaa muuqaalka xiga insha Allah.